عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تيفيga midnimo TV qaybtiisa gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boran waxaana idin soo tabinaya anigoo ah Caadif Calawash. haddana aanu gudubno bustigeena koowaad waxaan dib ka sheegi doonaa cidda soo gudbisay ee soo dhigtay ama Saciida inay wadaagtay waxay ahayd xilli dambe guriga waxa ku wada jiray oday iyo xaaskiisii. odaygu wuxuu balaayo ku ahaa ayuu weliba habeenkaas u kacsanaa. habeen barkii xilli aan macquul ahayn ayuu markaa isagoo indhaha casaystay oo soo yara kacay oo haddana dib u ragaal celiyay hurdadii iscamcaminayo doonay inuu dib u seexdo ayaa wuxuu maqlay message cod dheer oo ka baxaya dhanka xaaska mobilkeeda. si degdeg la ayuu la soo baday markii u soo qabtay markaasuu u eega markaasuu yadi garaa tos maxay message kan beautiful ku taalo yaa ku soo diray intay yaabtay oo ku tiri haj iska akhri waduu eeg maahan beautiful waa battery full charge full wey. وياو سوسكامس waxaan maleynayaa maalintaas ugu dambeysay maseer kullay ka yara haduusan joogto oo san ahaan. haddana waxaan gudbi doonaa postiga xiga. postigana waxaa soo dhigay nin la yiraahdo Faarax Awaash oo jooga Boosaaso. ninkan wuxuu yiri marka aad xoogaa bosti ah soo dhigtid kuwaasoo waliba ka hadlaya jacaylka iyo hasaawaha waxay ku qaadanayaan ama se ay ku maleynayaanba inuu kugu dhacay cudurka loo yaqaano naaganaagow. sidoo kale intaaguma sii hadhina wuxuu yidhi weliba waxay u qaadanayaan inay kaa taagan tahay dhiida oo dhareerka aad saa u daadinayso ama aad u qubaysid bahal qooqay oo muurmuuray oo cadaabin oo dumarkana aana tusi karinba sariirtana dul yaalla. waayaaba wuu sii socdaaye wuxuu yidhi mararka qaar dad baaba arkaysaa ku dhahaya miskiinkan ilaahayow caawi oo muu tugsanay. qaarna waxay dhahayaanba alla ilaahayow u guuri intaysaga weliba aan kugu daree cidda soo dhigtay bostigan oo ninka loo yaqaano amase ku caanbaxay Abu Hanifa bin Sheikh oo hadda jooga Bangladesh. marka inuu la meherinayo oo la sii balasan jiray ama qolay baad gooba loo diri jiray oo ninka Sheikh raadiya ama ninkii hebel halka ka ogay hala doono. waqtiyada kamid ayaa waxa dhacday in wadaad saas loo raadiyay iyadoo loo baahan yahay arrinta noocaas ah meherka in uu sameeyo. wala raadiyay waqti badan ayay qaadatay laakiin ugu dambeyntii waxaa lagu soo nasiibiyay loo lagu yaqaanay oo lagu ogaa. meeshii markii la yimi ayaa waxaa la ogaaday in sheekhi meesha uu ka maqan yahay. tala ku cadaatay dadkii afka isdhaafsadeen xamxamtu yaa badatay. gabadhii ayaa waxay maqashay hadda maqashay iyadoo hoos loo leeyahay sheekhi intay adkaysan weyday ayay hadalkii arxda ku dhufatay
oo weliba tiri haddii shiikhi la waayey miyaa loo nin la-aanaya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدي حلقة waxaynu ku tageynaa mas'alada dambe oo xiiso leh. Waxaana markaas idin xasuusinayna qaybahii idin dhaafay inaad kala socotaan dhanka internet-kan ku leenahay.